raba halkan inaan ka sheego inay nasiib darro weyn tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay wali wado ku celcelinayso dagaal ay ku wiiqayso hanaanka waxbarasho iyo horumarka dhinaca waxbarashada ee Puntland waxa u dambeysay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay joojiyeen shahaadadii oo ay u diideen ardayda reer Puntland haatanna ay arintaasi u xayiran yihiin oo ay Muqdisho iyo Puntland gudaheeda ay u joogaan hooyooyin waalid iyo caruurtooda oo arday ah oo shahaadadaasi rabay sidoo kale waxa kamid ah dagaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso Puntland ee dhinaca waxbarashada inay meelihii dhinaca waxbarashada wada shaqeynta Puntland ay la lahayd ay waraaqa u direen oo ay ku hor istaagayaan horumarka waxbarashada Puntland waxaana kamid ah dalka Masar oo dhawaan uu arintaasi darteed isna u tagay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland si arrimahaasi wax looga qabto dhaqamada noocaas waa kuwa muujinaya in la dirirayo Puntland dhinaca horumarka waxbarashada dabcan waxayna ay liddi ku yihiin shuruucda dalka ka jirta ama dastuurka kumeel gaarka ee federaalka Soomaaliya iyo heshiisyadii hore heer dawlad federaal iyo dawlad goboleed baa loo galay waxyaabaha ka dhashay cawaaqib xumana waxa qaadaya dabcan mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya arrimahaasi ku kacaya DMI